kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta ku xiran kanaalka Dhalaan Media ku soo dhawaada maantana sheeko kale oo aad u xiiso badan. sheekadana maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa caruurtii agoonta ahaa iyo eedadii arxanlada ahayd. sheekadani maanta waa sheeko aad u xiiso badan oo dhammaantiin aad ka wada heli doontaan daawadayaal. waxaan ka codsanaynaa muuqaalka like dhahdaan si uu dad badan u gaaro. sidoo kale haddii ay tahay marka ay kugu horeysay ee soo booqata kanaalka Dhalaan Media halmaam inaad subscribe dhahdo oo aad nagu soo biirto adiga kaliya ayaa naga dhiman. waan rajeynayaa inaad taas samayn doontaan aynu gudagalno sheekadana maanta. asxaabay bari hore waxaa meel tuulo deganaa qoys danyar ah oo aad u duruufaysan. waxaana u joogta laba caruur oo la kala dhihi jiray Suhayb iyo sidoo kale Sumaya. waxayna ahaayeen laba wiil iyo gabar, balse gaajada darteed ee reerkaasi haysatay maanta dambe waxaa ka geeriyootay hooyadood maadaama wax kastoo yeeshay labadii caruurta sii jirtay ayadiina way iska dhimatay. balse aabihii ayaa maalmo kadib soo guursaday xaaska kale uma aysan rooreen caruurta, markastana si arxan la-aan ah ayay u canaana jirtay wayna garaaci jirtay. sidoo kale way ka baqi jireen caruurta, balse maanta dambe waxay u timid ninkii caruurta dhalay. kadibna waxay ku tiri caruurtan way iska fogeynaynaa sababtoo ah biilkooda ma ka bixi karno, annaga ayaa waxa cunala ee naga wada caruurtan. kadibna wuu ku xanaaqay, maxaad ku hadlaysaa ayuu yidhi. waxay tiri caadi waa caruurta waa iska fogeynaynaa waana iska wadaynaa, biilkooda kama soo bixi karno. kadibna wuxuu ku yidhi hayle imaan waxaas mar dambana ha igu dhihin haddii aad rabto inaad xaaskayga sii ahaato, haddii kale ogow waan ku burinaya ayuu yidhi. arrintaas way la yaabtay xaaskii hadda la soo guursaday oo Caasho la dhihi jiray. waxayna ahayd mid caruurta guriga ku xirtay, laakiinse caruurtu gaajo darteed habeenkaas ma aysan seexan. wayna maqleen wararka ay isdhaafsadeen. waxay dhahayeen ma maqlaysaa xaaladda. wuxuu dhahaya wiilka weyn ee Suhayb ah, aniga ayaa arrintaasi xalinaya ee aduu iska dhaaf. aabihii ayaa subaxii dambe aaday qoriga guristiisa si uu caruurta iyo xaaskiisa biil ugu raadiyo, balse markaas ayay tiri hadda ayaan fursad haystaa oon ciyaalkan uga adkaan karaa. kadibna ciyaalkii ayay waday, balse wiilkaa Suhayb ah waxaa wiil aqli badan. rooti ayuu goostay kadibna dhulka ayuu ku daadinayay si hadhow uu wadada ugu soo aqoonsado, maadaama uu ogaa in la fogeynayo oo xalay uu maqlayay wararka ay ku wada hadlayeen. kadibna meel duura ayay istaagjiday ay tiri waa idiin soo laaba halkaas juga. waxayna ahayd qorax duhur ah oo aad u kulul. wax badan markay fadhiyeen Suhayb ayaa yidhi waan tegaynaa gabadhii walaashiisa ahayd ee Sumaya ahayd eena keen waan baxaynaaye. kadibna wuu waday, wuxuuna la soo qaaday raadkiisii oo rootiga kusoo daadshay odaygii iyo xaaskii oo markaana isku buuqsan oo raba inuu ilmihii goobo kuna xanaaqsan ayay u yimaadeen. wuuna ku farxay oo wuxuu yidhi soo dhawaada caruurteeda yar. halkaas ayayna ku sheekaysteen, balse wiilka Suhayb ayaa sheegay in eedda fogeysay oo duurka ay geysay. kadibna wuxuu ku yidhi caruurta maxaa duurka u geysay. waxay tiri aniga waa duqoobay, caruurta waan ilaaway marka duurka geeyay inaan soo wada ayaan rabay, anigoo soo tegay ayaan arkay. balse waxaa la gaaray toddobaadkii dambe haddana markaasay waxay ku tiri inta caruurta meel cilaa seexisay iyadoo wax sansiyeeriya u xirin oo caruurta cayayaanada ay sidoo kale iska cunayeen ayay kasoo tagtay. waxayna caruurtii wiilkii Suhayb habeenkaasoo dhan cunayay cayayaano saa'id ah. iyaduna waxay tiri caruurtaada waa inaad u keentaa sansiyeeri. odaygii mar kale ayuu duurka aaday si uu usoo shaqeeyo, balse wiilkan markasta wuxuu ilaashanayay rootigiisa oo wadada kusoo aqoonsanayo. mar kale ay ciyaalka haddana waday iyadoo weliba aad keynta ugu fogeysay oo weel dheer oo wadada dhexeysa ay aad ugu fogeynaysay. kadibna wuxuu daadinayay rootigii si uu usoo aqoonsado mar kale, balse muddo dheer oo maqnaa awgees waxay uga tagtay mar habeen ah meel duurka dhexdiisa ah. ciyaalkii maadaamay daaleen way iska hurdeen wayna wada seexseexdeen. kadib markii ay seexdeen waqti badan ayay ku qaadatay. xilli dambe oo habeen ayay maagajidkiina soo qaadaan, balse shimbiro ayaa cunay wax allaala iyo wixii wadada ay dhigteen ee rootiga kusoo calaamadaysanayeen. kadibna wuxuu waayay meel uu qaado. halkaas ayay Suhayb xaaladiisu ku xumaatay. kadibna wuu iska lugeeyeen iyagoo aqoon waayay xaafadii iyo meel ay kasoo galaan midna. muddo dheer markay lugeynayeen caruurtii yaryareed oo gaajoysnaa oo aad u xanuunsanay ayaa waxay arkeen guri asaga dhan ka samaysan keeg, xalwad iyo sidoo kale shukulaato iyo waxyaabaha caruurta ay jecel yihiin oo weliba ay soo karayaan. caruurtan maadaama ay gaajoonayeen aysana caqli badnayn oo ciyaal ahaayeen waxay go'aansadeen inay guriga galaan wax kastoo ay kala kulmaanba ay cunno ka raadsadaan. balse gurigan oo albaabadiisu furaayeen marka ay ciyaalkii soo galeen waxay cuneen bur iyo sidoo kale keegii meesha yaalay iyagoo cunaya
oo isku faraxsan. Markaas waxaa soo baxday maamo weyn oo aad u foolxun oo ay ka badan argagaxeen ciyaalkii markay arkeen. balse maamada waxay ku tiri hay ciyaalkayga yaryar soo dhawaada, aniga waxaan ahay islaan saaxirad ah, waxaad ogaa doontiin haddii aad ila joogtiin inaan waxba idin yeelaynin. ciyaalkii xoogaa way farxeen, waxayna yiraahdeen waad mahadsan tahay. sidoo kale ciyaalkii markay barya haysay habeenkii dambe markay ay seexdeen oo ay barya xanaaneysay waxay cunaan ay siinaysay, ayay markay ciyaalkii hurdeen waxay jiiday wiilkii iyadoo dhahaysa wiilkan waa aqli badan yahay. kadibna way xirtay oo waxay ku riday wiilkii xabsi iyadoo ay lahayd. halkaas ay u soo tagtay gabadhiina waxay ka dhigatay gabar u shaqaaleysada oo wax kasta iyadoo u qabata. balse maamadan saaxirada ah oo sidoo kale dad qalata ayay ahayd, waxayna maalin kasta soo fiirisay toddobaad kasta wiilka cunno aad u badan siiso, bal gacantiisa inuu cayilay in kale indhaha laakiin wax weyn ma aysan ka arki jirin. kadib markay damacdana gacanta ka fiiriso wuxuu u dhiibi jiray lafta uu hilibka ka cunay, markaasay dhihi jirtay wiilkan asaga ma cayilaya miya, maxaa ka qaldan. maalin dambe haddana weegii dambe ayaa la gaaray, mar kale ayay haddana duqdii damacday wiilkii dib ugu soo laabato, balse mar kale haddana laftii ayuu u dhiibay. arrintaas ayaa argagax iyo la yaab ku abuurtay duqda, balse waxay ku tiri gabadhii yareed dabka iishid oo meesha foornada ah iishid, wuxumaha cayilo imaha catoonaado, markaan kadib hilib lama sii doono, waa inaan qalanaa ayay tiri. balse wiilka yar Suhayb wuu ogaa asaga wax kasta iyo sida loo kaarteynayo. gabadhan yarta ay Sumayana waxay go'aan ku gaartay sidii ay duqdan fool xumada badan ee dad qalatada wiilka walaalkeed ah ay kaga badbaadin lahayd. kadib waxay tiri dabkii ma shiday Sumaya duqdii iyadoo rabtay in wiilka qalato. kadibna waxay tiri waan shiday ee kaala arag maamo dabku suu u shidan yahay, bal fiiri maxaa ka qaldan. duqdii markay dacay fiirsaba waatan godkii ay ku riday foornada wayna ku xirtay. kadibna walaalkeed ay xabsigii ka soo furtay, waxayna ku tiri walaal inta duqdu ay soo baxay way gubatay, waan inaan cararnaa. kadibna labadoodii ayaa soo cararay. markay ka soo baxeen ayagoo nabad qaba gurigii qatarta ahaa ee duqda saaxirada ah, haddana mar kale ayay lugeynayeen, wayna waayeen meel kale oo ay ciidoodii ka helaan. markay ay baar socdeen carruurtii yareed waxaa qabsatay gaajatii ugu dareed iyo daal dheeri ah. habeen ayaa la gaaray, meel ayay iska farfariisteen maadaama ay daalanayeen oo ay aad iyo aad xaaladoodu u xumaatay. ayagoo halkaas ka ooyaya waxay maqleen cod dhahaya carruurteydii yaa arkay. kadibna waxay yiraahdeen aabbo waana kan annagii halkan ayaa joognaa ayuu ku qayliyay wiilkii Suhayb ahaa ee ahaa wiilkii caadka u aqliga badan. Suhayb markuu qayliyaba aabbihi ayaa asna maqlay, wuuna soo orday isagoo faynuus wata oo ku raad goobaya. kadib markuu carruurtiisa helay aad ayuu u farxay, wuxuuna soo uga sheekeeyay qisadii dhacday siduu xaaskiisa ugu xanaaqay markay tiri ciyaalka waa maqan yihiin oo guriga uu tagay oo markaas faynuusta qaatay ciyaalka uu raadshay iyo intii uu wareegay iyo teer iyo 2 toddobaad ay maqnaayeen sidii uu u wareegay ayuu uga sheekeeyay iyo orodkii iyo dhibkii uu marayay. isaga laftiisa 2 toddobaad oo wax ma soo cunin duurka ayuuna wareegayay, balse carruurta ayaa uga sheekeeyay gurigii quruxda badnaa ay tageen iyo sida ay wiilkan u soo badbaadisay gabadha yar. sidoo kale waxay uga sheekeeyeen in duqdan ay wax badan ka cuneen balse ay ku guuldareysteen, iyo sidoo kale in duurka ay u fogeysay eedada arxanka daran ayay sidoo kale odaga uga sheekeeyeen. aabihii markaasi ayuu go'aansaday inuu carruurtiisa guriga geeyo, aysan carruurtan sii noolaanaynin inta eedada arxanka daran joogto. kadib markuu carruurta guriga geeyay eedadii ayuu furay, kadibna wuu cayriyay asagoo la haray labadiisa cunug oo kale ah. haddaba asxaabi sheekadan halka qiso oo laga fahmay ayaa ah mar kastaba waxaa looga baahan yahay qofka waalidka ah inuu carruurtiisa ka warqabo, waardiyeysto, daryeesho, balse ogow eedadu haddii ay arxan daran tahay laguma hadlayn karo wax carruur ah sida halkan baad ku aragteen ama sheeko xiriirooyin badan ee Soomaali ahba ay qorayaan. waa rajina sheekada dhamaantina ka hesheen asxaab sharafta la'aan ka codsanaya muuqaalka laag dhahdaan. sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad asxaabtiin la sii wadaagtaan, hadday ta markaa kugu horeysana ha halmaamin inaad muuqaalka laag dhahdo, kanaalkana aad ku soo birto. mahadsanidin, waa noo sheekada soo socota.